kaduudiye ama kaduudshow waa xanuun sanado ka hor ka dilaacay Soomaaliya wuxuuna dhamaadka 2019 uu noqday mid soo laba kacleeyay dadka Soomaaliyeed ayaana siyaabooyin kala duwan uga falceliyay xanuunkan waxa uu yahay iyo sidoo kale sida loo daweyn karo dadka qaba kaduudshowga ayaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya waxaana sidoo kale jira fahan la'aan la xiriirta sida loo daweyn karo dhakhaatiirta waxa ay bilaabeen inay dadka ka talageliyaan sida looga hortagi karo maadaama badanaa dadku aqoon u lahayn sidoo kalena uusan la mid ahayn xanuunada kale ee sida caadiga Soomaalidu ugu dhaco ama qaarkood la heli karo dawooyinkoodu ay dadku yaqaanaan si dadku u ogaadaan sida looga hortagi karo una helaan talooyin caafimaad waxaan xanuunkan iyo sida looga hortagi karo ama loo daweyn karo wax ka weydiiyay Dr. Usaama Cabdi Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Kalkaal cudurkan waa cudur Soomaali hadda ka noqday safmar Soomaalidu waxay wada bixin kaduudiye laakiin cudurka saxda ah waxa waaye chikungunya virus chikungunya Soomaaliya markii ugu horeysay maahan hadda lagu arka maahan marar hore lagu arkay walow Soomaaliya iska adag tahay cudurrada in la hubiyo cudurka ay yihiin oo diagnosis saxda ah la helo maadaama uu safmar ka noqday waxa cudurkan uu ka imaanayaa kaneecada Soomaaliya hadda waxa ka dhacay roob fara badan waxa dhashay cayayaan badan iyo mataqaana cayayaan badan oo ay kaneecada ugu horeyso oo cudurkan ay kaneecada ka tahay waa qaadaha weyn ama macnaha meesha ugu weyn oo mataqaana cudurkan isku faafisa ama gudbisa ay tahay kaneecada marka cudurkan cudur si lama filaan ku soo galay wuxuuna noqday safmar oo dadkii oo dhan ayuu mataqaana saameeyay sidoo kale Dr. Usaama ayaa bulshada Soomaaliyeed uga digay inay isticmaalaan dawooyin loo isticmaalo cudurro kaduudiyaha lagu qaldi karo oo ay saameyn caafimaad ka dhalan karto tusaale ahaan cudurkan wuxuu ka agdhow yahay cudurro kale oo ka agdhow yahay jiro sida dengue fever oo ayagana mataqaana hadii dawooyinka qaar hadda khatiir badan ama mataqaana goob badan caafimaad laga isticmaalo hadii loo isticmaalo khatar badan keeni karo tusaale ahaan dengue fever wuxuu leeyahay risk of bleeding wuxuu leeyahay khatar qofka ku keeni karto inuu mataqaana dhiig bax fara badan oo ku imaado hadii loo isticmaalo dawooyinka NSAIDs ama waxa loo yaqaan non steroid anti inflammatory drugs marka waa muhiim horta in la iska hubiyo oo exclusion lagu sameeyo marka labaadna waxa waaye waa qofka dadka oo eldariga ah ama dadka waaweyn ama dadka cudurrada kala qabay ciyaalkana waa in care gooniyo oo mataqaana oo taxadar gooniyo loo sameeyo la monitor gareeyo cudurrada kale ay qabaan sida PB-ga qofka sokor ugu qabo sokortiisa la control ciyaalka kale meel safe la geliyo laga ilaaliyo transmissionka iyo kaneecadii inay u dhawaadaan aad looga ilaaliyo daawo waa la isticmaali karaa caadi waaye khatar maahan dadka qaar waxay ku leeyihiin hadii qanada ugu badato inuu qana jabiyo hadaa cuno ama filan qana jabiyo hadii la siiyo waa dhimanaya cudurkan hadii daawo loo isticmaalo waa loo dhintaa ama sax maahan oo wax cilmiya maaha waxaas bulshadana inay ka baraarugtaa fiican dhakhaatiirtana waxa inay baraarujiyaan ay dadka kala hadlaan ee dadka u sheegaan fiican xanuunkan ayay dad badan oo Soomaaliyeed ka aaminsan yihiin si ka duwan sida uu yahay waxaana jira talooyin ay dad aan qaarkood dhakhaatiir ahayn dadka siiyaan qaarkoodna dad badan ay dhibaato kala kulmi karaan hadii ay ku dhaqmaan haddaba sidee ay tahay talada dhakhaatiirta ee ay dadku uga digayaan talada caafimaad horta waxa waaye marka koowaad waxa waaye qofka bulshada laba isku jirta dad markay cudurkan isku arkaan aanan mataqaana tala caafimaad oo dhan raadsanin iyo dad tala caafimaad raadsado dadka talooyinka caafimaad raadsado waxaan leeyahay cudurkan daawo qandhada iyo dhibka uu leeyahay daawo loo qaadan karaa wax dhib ma lahan sidoo kale dadka oo mataqaana iska meelaha oonan professional ka ahayn tago oo mataqaana talooyin caafimaad ka raadsado daawooyinka faraha badan iska isticmaalay daawooyinka aad u khatarta badan isku cuno waxaan kala talinayaa inay daawooyin xad dhaaf isticmaalaan waxaa jiro qofka inuu daawooyin ka tan badan ama ka tira badan kuwa loogu talagalo isticmaalo cudurkan haddaa isku aragtid dhakhtar la xiriir tala caafimaad raadso daawo waa la qaadan karaa wax dhib ma lahan mataqaana iskana ilaali khataraha oo sida kaneecada iyo meelaha biyo deegaanada iyo waxyaabaas u dhawaatid iska ilaali Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad Shabeelle TV Muqdisho.